radio garowe aad baad u mahadsantihiin magaalada garowe iyadoo yar baan garanayaa dhowr iyo 70kii ay ugu dambeysay aad iyo aad ugu faraxsanahay idaacaddu ama radiogu wuxuu soo maray waqti aad u dheer ayuu soo maray oo 1800 iyo dhowr iyo 90kii baa la yiraahdaa in radiogu uu soo bilaabay tijaabooyinkiisii ugu horeeyay oo nin Jarmal Hertz la yiraahdo iyo nin Talyaani oo Marconi la yiraahdo ayaa aad la yiraahdo inay ikhtiraaceen in mashiinada radioga iyo mawjadahan laga dhigaysto markii hore mawjadaha gaaban ahaa xaaladu soo maray laakiin imaka waxa la aqoonsan yahay radiogu uu yahay aalada kaliya awase aan laga maarmay ilaa iyo haatan haysata dadka oo dadkii reer miyiga ahaa ama mujtamacan dalalka soo korayay mujtamacyada kaleba waxay u badan yihiin radioga la dhageystaa oo mujtamacan dalalka soo koraya ma haystaan electricity way ku yartahay kaaga mana baahna in aad meel fadhido laakiin isagoo waxaad ku qaadan kartaa garabkaad ku qaadan kartaa radioga yar waxaad ka dhageysan kartaa hadaad doonto jeebkaad ku ridan kartaa bada imaka waxaad kaloo aad ka dhageysan kartaa mobilkaaga waxaa kaloo jira in isagoo aanu kaaga baahnayn electricity battery aad gashan karto dhinaca kale marka loo eegana xataa dalalka soo koray dalalka horumaray marka la eegana kaagama baahna waqti aad ku lumiso shaqadii baad adoobiiskaaga dhigan kartaa aad ka dhageysan kartaa gaarigaaga adigoo fuusha baad ka dhageysan kartaa marka radiogu waa aalada koowaad ee imika xagga warbaahinta waliba meelaha beeralayda iyo miyiga ah marka radiogu waa laga maarmaan sidaas ba xoog loo saaraa oo maalinta 13 bisha February loo asteeyay laakiin waxa ay tahay arintu in waxa laga sii deynayo way radiogu waa qalab uure laakiin waxa laga sii deynayaa waxa weeye ilaa dadka fidna ku abuurin ina ay yihiin mas'uuliyad weyn ayaa saaran daragiina imaka radioga ka shaqeynaya oo aad iyo aad dadkii alla isku dirin oo marka ay inaga oo kale Soomaalida laba beelood markay dagaalamaan in la ilaaliyo oo dad labadii beelood waraysato mid walba ku sii deeyto radioga mid walba oo faaray intaasaan dilay oo laakiin waxa ka fiican deegaanka marka cid dhexaad marka la doono in la doono maamulka in wixii kala joojinaya islaaxu daatul bayn marka dhinaca laga galo ee dhinacii hurinta aan qaadan marka sawadogta Rwanda dalka la yiraahdo waxa isku diray radio yar baa isku diray 800 oo qof ayaa ku kala dhintay Hutuga iyo Tutsiga wadooda 1994 bay Soomaaliya radiogu muhiimadaasi ayuu leeyahay waayay marka Ahmed sida hadda sheegtay waxa uu radio markaasi kaalinta koowaad uu kaga jira dhanka warbaahinta oo marka dadka oo dhan ba aad moodaan inuu ku xidhan laakiin hadda waxa loolan adag kula jira oo arintaasi ku haysta social media bal arintaas waxa ay saameyn ku yeelatay raadihi anigu ma qabo in social media ama baraha warbaahintu ay la tartami karaan radioga waa run oo mobilkii baad arkaysaa wixii aad ka daawanaysaa markii warkii soo baxay laakiin wuxuu u baahan yahay waa doctor mar walba hatta mobilkii baa qaaliya laakiin radiogi waxaad ku helaysaa dadka مثل aqlabiyada inaga Soomaalida oo kale ka soo qaad 170 waa reer miyi mobil ma haystaan laakiin radioga yar halka garabku ku sitaa uu la guuraya baytariyadiisa inuu qaalahay buu hayriya wuxuu kaga baxayaa ma ahaba lixdii bilood wax yar oo $2 ayuu u baahan yahay marka ma gaari karaan anigu sida loo heliyo ayaan ka hadlayaa laakiin tan kale magaalooyinka dadkii mobil ay wada sitaan taasi waa dhibaato soo korodhay oo mas'uuliyad badan u baahan oo aad arkayso in the fake news baba la soo saaray imaka oo aad arkayso sidii loo isticmaaliyo la warkaasi terminology cusub ku soo kornay saxaafada oo la leeyahay waxaan baraha bulshada qof u baytu iska duubo gelinaya marka laba oran karo kaasi waa war lagu kalsoonaan karo laakiin hadda way leedahay dhibaatadeeda ay leedahay waa bay isticmaalaan laakiin dhinaca wanaagsan oo loo isticmaali karaa oo wadagto idaacadiina kale marka imaka warka ay heshay ay geliso baraha bulshada waa la helaya laakiin hadda inta badan baa jirta waxa badan inta si khalad u isticmaalaysa warkan beenta ku isticmaalaysa ama anshaxii iyo nidaamkii iyo editorialkii iyo standardkii radioga aan lahayn marka radiogu ilaa haatan waa lafdhabarka dadka dhageystayaasha ee dalalka waliba soo koraya waayo Ahmed marka loo fiiriyo dhageystayaasha radioga
waxa ku haray oo hadda dhageysta dadka waayeelka oo kaliya dhalinyaradii waxa aad moodaa inay u wareegtay dhanka social media sida aynu wada ognahay dalkeena Soomaaliya waxa la yiraahdaa boqolkiiba 70 iyo waliba wax dhalinyaro weeye markaas oo lama oran karo dhanka saameyn buu kaga yeeshay raadiyo magaalooyinka weeyaan dib dadkan helaya mobilkii helaya yaan radio ka dhageysanaynin laakiin mobilkii helaya laakiin soo qaad garowa joogta garowo kaliya ma aha de Puntland marka soo qaado laakiin bal soo qaad inta miyiga joogtay aan haysanba mobil radioga ku xidhan taa lama oran karo in soo qaadan dhalinyarada inta magaalooyinka joogtona ku xisaabtamaan inta kala badan ee miyiga joogta ama beeraleyda ama mobil ba haysan marka sida way sida radiogu ilaaha uu haysto kaalinta koowaad ee lagu haysan in la og yahay dhinaca warbaahinta waliba dalkeena soo koray